qabsanaya ya sheekhi meel muxaadara ka jeediya meel ama mu'tamar yimaada liis baa la gashadaa ya oo inuu dhoofaa loo diidaa inuu diyaaradaha raaca loo diidaa marka maxabada bay gelinayaan diintani ya dee raggii usoo halgamay saxaabadii nabigii sallallahu alayhi wasallam taabiciintii maanta mi xaggan ugu soo gaar lahayd inay soo gaadheenayo la qabo ya rag baa iska rabtaagay diinta oo ilaahay ajar kaga dalbay oo dhibaatada iyo adada u taxamulay soo garan maysid marka la qabo in diinta la dayaco maaha waa qurba lagu jiraa qurbadana waxaan waa in diinta la nooleeyo kan mid noqo min almujaddidiin dadka diinta tajdiidinaya ee ixyaaga ku sameynaya madharkaaga dhaqankaaga reerkaaga si aad guriga aad uga dhaqanto dacwadaada ya inaad ma garanaysaa aad ku adkaysatay weyn oo dariiqadii salafka iyo ahlu sunna wal jamaa caqiidadoodii iyo hadigoogii iyo samtigoogii in maanta lagu adkaysto waana xilliga loo baahan weeyaan markay diintu ay fudud tahay cid kastaaba ay iskaga dhaqmayso waxa inta qof walba uu sameyn karaa laakiin marka arrinku adkaado rijaalu baa loo baahan ya kuwaasaan ajarka intiisa badan qaadanaya ajarka intiisa badan nimanka qurbada ah ee diinta ixyaaga ku sameynaya ee sunnihii nabiga iyo dhaqankiisii iyo samtigiisii iyo hadigiisii iyo caqiidadiisii aan ka tanaasulayn kuwaas ee waliba ku baaqayana ma aha inay ku dhaqmaan oo misaajida la galaan isqariyaan ma aha ee dadkay ku baaqayaan yad'uuna ila Allah azza wa jalla yad'uuna ila Allah tabaaraka wa ta'ala sunnaha ayay fidinayaan shariicada ayay meel kasta ka naadinayaan sunnaha ay dadka ugu yeerayaan bidcada ay dadka ay uga digayaan waay marka sheekhu wuxuu yiri dad baa saas noqday waay wuxuu sheekhu yiri tusaale buu inoo sheegaya dadka qaar kood ka dhaca oo wuxuu qof imaka midka kale marka cuntada ay cunayso mididkii ayuu bariiski ku cunaa marka bariiski iyo marqi wixii baa gacanta ku yaala marka koobka wuxuu ku cabaayo wuxuu diinayaa inuu ku qabto ira koobka uu saxoobayo marka tan wuxuu ku cunayaa midigta bidixna wuxuu ku cabayaa soo garmaysid sheekhu masaladaasi uu radiya bal indhageysana marka waxa uu yiri wuxuu yiri qofba hadii loo soo qadimo sharaab wuxuu cabo isagoo wax cunaya oo midigtii wax ku cunaya ayaa bidixdu wax ku cabaya hadii la maxad saaw yeeshana koobka ayaa wasakhoobaya buu oranaya waay marka sheekhu wuxuu leeyay waay ikhwaani marka sheekhu wuxuu yiri waa inaad hatta haduu koobka wasakhoobayo buu yiri waa inaad midigta aad koobka aad ku qabsato buu yiri marka sheekhu arrinka uu fududeynaya koobka waad meeri kartaa buu sheekhu yiri ya koobka waad meeri kartaa laakiin sunnaha khilaafin teeda kale sheekhu wuxuu yiri maanta de waxa jira buu yiri yani in koobab baa jira buu sheekhu yiri one time use oo koobkan kan hayo kale de marun baa la isticmaalaa wana xashika la iska rida sheekhuna ka soo yiri ya koobab markii la isticmaalo marka ha oran uu wasakhoobaya marka bixdan ku cabaya saxa ku banaysan ayuu mushkiladu waxa weeyaan marka yani ay dadku ra'yigooga khaaska ay diinta ay soo dhaxgeliyaan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa kiri al-Laka'i rahimahullahu ta'ala ya fi sharhi usul i'tiqad ahli sunnah ayu athar kaasi ku soo wari Umar radiyallahu ta'ala anhu iyyakum wa ashab ar-ra'y iyyakum wa ashab ar-ra'y kuwa diinta ra'yigooga maxdiga ku qiyaasa ee sunnaha iyo hadiga iyo atharka nabiga ka taga kuwa iska jira way idin luminayaan kuwaas ويدن لومينيان ee iska ilaaliya ikhwa yani maanta wax weeyaan dad badan baa ra'yigoogi diintii soo gelinayo oo sunna cad oo waadixa dooni in dadka kaga leexiyaan bisababi araa'ihim qarba oranaya yani raggu in dumarka ay musaafaxa ay ku sameeyaan waxba kuma jirno oo hay iska aan qaadaan ikhtilaadka waxba kuma jabna soo galmaysid in dumarku xijaabka ay iska qaadaan waxba kuma jabna iyo umuro inta ka weyn ribada ay qaarbaneen guriyaha ribood ku iibsan karaysan laakiin buu yiri sheekhu shaytaanka ayaa yuzayyinu lil insaan shaydaanka ayaa u qurxinayo qofka amalkiisa deebatana ayu halqa amalkii xumaa
camalkii yani xumaa ayuu wanaag u arkaya haddii qofka ay diiraddu ay ka xumaato camalkii xumaa wanaag buu arkaya camalkii wanaagsanaana xumaan buu arkaya afaman zuyina lahu suu camalihi fara'ahu xasanan faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa nas'alu allaha alcaafiya sheekhu wuxuu kusoo gabagabeynaya ayuha alikhwa masaladaasi fayaxrumu cala alinsani biayi xaalin min alaxwaal xaalad kasta ha ahaatee waxa qofka bila-aadamiga ka xaaraana inuu midigta inuu bidixda bidixda wax ku cuno bidixdana wax ku cabo ilaa lidaruuratin ilaa daruuro mooyaane daruuratu tubixu lmaxduuraat sida ay culimadu ay yidhahdeen fattaqu llaha ma istatactum buu ilahay subxana wa tacala yidhi marka cibaadadii ayuha alikhwa waxay ku xidhan tahay iyo awaamirta istitaacay ku xidhan tahay qofka haddii ay istitaacadiisii iyo kartidiisii awooddiisii ay ka baxsan tahay ilahay subxana wa tacala laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha marka wuxuu yidhi sheekhu haddii haddaba gacanta midig ay aafo tahay oo shalal u ku dhacay amaba ay gacanta midig ay jaban tahay amaba sheekhu buu yidhi laysa lahu asaabic aanu faraba lahayn ilaahay qofka bilaadinka arrimaha qaarkood buu ku ibtilayn karaa soo maaha waay aw maa ashbaha dalika min adaruura ama arrimaha saasoo kale ee daruurada ah fa hadihi daruuratun buu yidhi taasi waa baahi buu yidhi waa daruura ku kaliftay wamaa jacala allahu calayna fi diini min xaraj marka haddii ay baahi ku kaliftay waxa weeyaan markaa qofka baahidii waa ay magaranaysaa u banaynaysaa walidalika ayaamatirka oo kale iminka xajka oo kale ayaamaha mina waynu ogna waxa waa in mina gudaheeda la joogo weeyaan ayaama tashriiqi soo maha waa in mina gudaheeda la joogo maalmahaasi mina inta la joogayo haddaba iminka xujaajtii way bateen dayb kaba soo qaadba adoo xaajiya ayaa waxaad ku dadaalaysaa inaad xuduuddii mina aad joogto ood maalmahaasi aad joogto way ku suuro geli weyday way buuxdaa waxay ku fidiyoodeen waxa weeyaan meesha xuduudda ugu soo dhow waa taambuugaaga ayaad dhiganaysaa ayaad dhiganaysaa meesha ugu soo dhow xadka maa inaad sii fogaata maaha adna aad ka sii badbadiso meesha xadkeega ugu soo dhow ayaad lianno waxa weeyaan bacda istifraaq aljuhd iyo muxaawalaad aad samaysay inaad xadkii aad soo gasho lakin haddii buuxsamo ood meelba ka weydo dee culimadeenu jazaahum allah khayr waxay ku fidiyoodeen waxa weeyaan markaa xukunkii daruurada ayaa halkaasi la ictibaaraya xukunkaasina ayuha alikhwa qaacidaasina waa qaacida mufiida oo qofka ay daruuradii ay u banaynayso waxa weeyaan xadiiskii bukhaari iyo nasaa-i baa soo wariyey cimraan bin xusein radi allahu canhu ayaa wuxuu lahaa cudurka bawaasiirta ayuu lahaa soo garan maysid cudurkaasi ayuu lahaa dabeetana nebiga ayuu u yimid oo uu yidhi yaa rasuul allah ma kari karaayo waan xanuunsanayaa markaa nebigu wuxuu ku yidhi sarajoog ku tuko haddaad kari weydo fadhi ku tuko haddaad kari weydo jiif ku tuko rawaada nasaa-i waxaa lagu kordhiyey haddii aad kari weydo adigoo mustalqiyo qadaadka u jiifa tuko markaa diintu waxay muraacaad siinaysaa qofka xaaladiisa ilahayna wuxuuna yidhi intii aad kari kartaanu ilahay ka cabsada marka haddii qofkii gacantii ay go-an tahay ama ay gacantii maalinkaa maanta ikhwa yani gacmuhu aanay fara aanay lahayn ama gacantu ay jaban tahay waxa weeyaan waa in ilahay subxana wa tacaala uu fududeeyey marka waxa weyan dee bidixdii markaa waxuu ku cabi karaa waxna wuu ku cuni karaa yani waxana waa nicam ayuha alikhwa waxani waa nicam fara badan oo ilahay subxana wa tacaala una siiyey oo qofka bini-aadanka yani maalinta aad gacantaada weydo ayaad xusuusanaysaa nicmadaas inta laegtay maalinta isha iyo aragga uu qofku waayo ayuu nicmadaasi u xusuusanaya maalinta uu qofku waayo ayuha alikhwa lugihii ku soconayay ayuu qofkii xusuusanayaa nicmada weyn ilahay siiyey walidalika ayaa sheekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacala waxa uu yidhi qofka mu'minka ee caabidkii yasiiru ila allahi caza wajal bayna amrayn wuxuu ilaahay subxana wa tacaala uu socdaa uu raxmadiisa ilahay rajeynaya oo safarkaasi adduunyada uu ku jiro siduu ilahay raalidiisa u gaadho bayna mushaahadati alminna wa mutaalacat aldunuub wataqsiir qofka muuminkii
سيره إلى الله عز وجل ولبضاصم بودحيانون بين مشاهدة المنة